maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin wacan waa mar kale iyo barnaamijkeennii tababarayaasha. waxaan maanta bilaabaynaa maalintii 8aad ee barnaamijkeena Training of Trainers, gaar ahaan maadada physics-ka. waxaana bilaabi doonaa fasalka 12aad maadada physics-ka. presentation-keena maanta session-ka hore ee ugu horeeyo waxaan ku qaadan doonaa labada chapter ee ugu horeysa buugga physics-ka 12aad. marka ugu horeyso inta aanan gelin chapter-ka, horta bal aan isla fiirino overview of this book. buuggan dulmar guud aan ku sameyno ama sida structure-ka uu samaysan yahay, qaabka uu samaysan yahay. kama duwana sida buugaagtii hore oo kale form 1 iyo form 2 iyo form 3 saddexdii buug ka horeysay manhajkan waa isku mid waaye, waa same style. waxay u kala duwan yihiin mala kaliya waxaa laga yaabaa inuu ka weyn yahay buug ahaan, uu ka xajmi weyn yahay. marka buuggan oo 12aad physics-ka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 11 chapter. 11 chapter ayuu ka kooban yahay, iyo page ahaan qiyaastii waa 388 page. tirada page-diisa marka taas waxay ku cadeynaysaa inuu aad u xajmi weyn yahay markii loo eego buugaagtii hore. form 1-ka iyo form 2-ga iyo form 3-ga. form 2-ga ayaa ugu yaraa oo ahaa 177 page. grade 10-ka ayaa ugu number of pages yaraa, waxaa ugu badan 12aadka. haddaba halkan marka 11 chapter waxay kala yihiin sidaan meesha ku qoran. chapter-ka ugu horeeyo 12aadka waa oscillatory motion. socod gariirka ama vibratory motion. sidoo kale chapter-ka labaad waa wave motion, socod hireedka. sidoo kale sound waves. chapter-ka afaraad waa reflection of light. kan shanaad waa refraction of light. kan lixaad waa dispersion of light. 6da chapter ee ugu horeysa. next, halkan waxaa sii socda chapterada ayaa sii socda. kan markaa meeshan waxaa leenahay chapter 7 cilad farsamo waaye. halkan waa chapter 8, chapter 9, tobnaad, 11aad. 6da chapter ugu horeyso, 5da chapter ku xigtana waa kuwaana. chapter-ka 7aad waa electromagnetic induction. kan 8aad waa alternating current, AC lasoo gaabiyo. kan 9aad waa electronics. kan 10aad waa modern physics. 11aadna waa nuclear physics. marka 11kaas chapter ayaan ku baran doonaa ku yaabay buugga. buuggan waa 11 chapter ka kooban. next, haddii chapter aan usoo qaadano, chapter-ka ugu horeeyo waa oscillatory motion, socodka loo yaqaano oscillation-ka ama vibration. chapter-kan marka waxyaabaha bunuudiisa ama outline-kiisa waa kuwaana. kan ugu horeeyo waa objectives. chapter-kan objectives-kiisa ayaan ka hadli doonaa. inta objective ayuu leeyahay, objectives-kiisa, contents-kiisa ama casharada ku dhex jira. sidoo kale methods of teaching for this chapter. how can we teach this chapter? chapter-kan sida loo dhigi lahaa ama methodska ku habboon si loo dhigo.
sidoo kale activitieska in this chapterkan activities ku jiro iyo sida ay kala yihiin iyo inta number ay yihiin resources of this chapterkan meelaha laga heli karo sidoo kale suggested assessments waxyaabaha qaababka ama methodska loo assess gareyn karo chapterkan mid haddii aan qaadano marka objectives haddii aan ku hormarno objectives of this chapterkan objectiveskiisa waa fara badan yihiin maxaa ka mid ah marka objectiveska chapterkan haddii uu dhammaysto ardayga chapterkan wuxuu awood u yeelan doonaa inuu qeexo waxa la yidhaahdo oscillatory motion inuu qeexo ardaygu ayuu awood u yeelan doonaa at the end of this chapter sidoo kale wuxuu awood u yeelan doonaa inuu demonstrate gareeyo more examples with oscillatory motion inuu tusaalooyin u keeno oscillatory motion inuu u keeno tusaalooyin fara badan oo u keeno sidoo kale wuxuu awood u yeelan doonaa ardaygu inuu sharaxaad ka bixiyo periodic motionka socodkan loo yaqaano periodic motion socod kaleedka sidoo kale ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu kala saaro faraqa u dhexeeya oscillatory motion iyo maxay periodic motion labadaas socod oo ah oscillationka iyo periodic motionka labadaas socod faraqa u dhexeeya ayuu hadhow awood u yeelan doonaa ardaygu bacdama uu qaato chapterka markuu qaato kadib next objectives ayaa weli sii socda sidoo kale ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu qeexo period waxa la dhaho sidoo kale frequency waxa la dhaho inuu qeexo inuu kala saari karo labadooda sidoo kale ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu kala saaro farqa u dhexeeyo frequency-ga iyo period-ka waxyaabaha ay kala duwan yihiin relation ka dhexeeyo formulahooda waxaas oo dhan sidoo kale ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu solve gareeyo ama uu furfuro mas'alooyinka la xiriira frequency-ga iyo period-ka period iyo frequency waxaa iska leh periodic motionka periodic motionka period iyo frequency-ga uu leeyahay waxaa jira problems badan ee ku jira buugga hadhow ardayga markuu qaato chapterkan marka wuxuu awood u yeelan doonaa su'aalaha ama problems ka yimaada ama la xiriira frequency iyo period-ka inuu xalliyo ama uu solve gareeyo ayuu awood u yeelan doonaa sidoo kale at the end of this chapter ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa in uu sheego simple harmonic motion waxa loo yaqaano inuu sheego qeexid inuu qeexo oraah oo ku cabiri karo ama uu mathematically u sheegi karo waxa la yiraahdo simple harmonic motion wali waxa sii socda objectiveska waa aad u fara badan yihiin chapterkan objectiveskiisa in uu dhiso formulooyin isla egyada la xiriira simple harmonic motion waxaa jira equation fara badan uu leeyahay formulooyinkaas inuu diyaariyo ama uu dharaandhiyo ama uu buruufo isla egyadaas oo xiriirka la leh simple harmonic motion ama si kale hadaa u dhahno isla egyada simple harmonic motion inuu formulad gareeyo ardaygu ayuu awood u yeelan doonaa sidoo kale ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu xisaabiyo energy stored in the simple harmonic motion waxaa ognahay waxaa energy ayuu leeyahay energygaas ku kaydsan ama si kale hadaa u dhahno mechanical energy ama potential energy oo elastic materialka inuu ardaygu uu hadhow xisaabi karo sidoo kale ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu qeexo simple pendulum wax la dhaho wuxuu awood u yeelan doonaa inuu xisaabiyo problemska la xiriira simple pendulumka problemska la xiriira inuu qeexi karo lessonska cashirkan ama contentska uu leeyahay cashirkan chapterkan lessonskiisa ama waxyaabaha ku dhex jira chapterkan casharadiisa waa kuwa anaha 1.1 oo macnaheedu uu yahay chapterka koowaad cashirkiisa koowaad waa periodic and oscillatory motion cashirka ugu horeeya chapterka wuxuu ahaa oscillatory motion cashirkiisa koowaad waxaa la yiraahdaa periodic and oscillatory motion
cashrigiisa labaad waxaa la yidhahdaa mathematical representation and simple harmonic motion. Simple harmonic motion iyo mathematical representation xisaabaadka ama qaacidooyinka ku dhex jira simple harmonic motion ayaa laga hadli doonaa, lagu baran doonaa. sidoo kale chapterka saddexaad waxaa laga hadli doonaa isla egyada la xiriira simple harmonic motion iyo reference circle. goobada tixraaca badanaa waxaa laga dharaanbiliyaa ama laga keenaa qaacidooyin aad u fara badan oo la xiriira simple harmonic motion shay ku socda. 1.4 chapterka afaraad lessonka afaraad aan dhahno waa simple pendulum and application of simple harmonic motion. cashirka ugu dambeeya waaye waa simple pendulum iyo applicationada la xiriira simple harmonic motion. methodology-ga marka chapterkan hababka loo dhigi karo waxaa weeyaan waxaan soo jeedinaynaa ilaa iyo qodobadan ilaa iyo 4 method ayaa ku habboon chapterkan. chapterkan aad u ballaaran yahay, waxaa ku jira formulooyin aad u fara badan ku jiro, illustration fara badan oo leeyahay, moolo iyo simple pendulum iyo waxaa ku jiro illustration aad u fara badan ku jiro. sidaa darteed activity-da ku jirana waxaa waaye experiment iyo discussion iyo maxaa la yiraahdaa waxaa kaloo ku jiro activity-da ku jiro activity oo illustration markaa u baahan ama sawirid u baahan oo kale ayaa ku jira. marka waxaan isleenahay marka chapterkan waxaa ku habboon si loo dhigo ama loo gudbiyo methodyadan. waxaa kaloo maskaxda ku haysaa waxbarashada hadda waxaa sal u ah ardayga ayaa wuxuu yahay aasaas ama centerka waxbarashada waa ardayga ayaa ah xudunta waxbarashada, asiga ayaa waxbarashada wadaaya, macalinkuna waa hagay ama waa facilitator fududeeya keliya ma ahan macalinka inuu cashirka iska wada asiga. taas marka xasuusnaa mar walbaba lesson balaankaadana ama qorshahaada ku darso mar walbaba. methodology-ga chapterkan oo ah oscillatory motion waxaa ka mid ah isticmaali karnaa demonstration method ayaan kusoo bandhigi karnaa cashirkan. demonstration method sidoo kale discussion method arday la qaybiyo oo la doodo. illustration method in wax la illustrate gareeyo, wax la sawiro, diagrams la sameeyo. sidoo kale participation method ardayda inay ka qayb qaataan wixii. demonstration maxaa waaye in qalab la isticmaalo tools ama audiovisual aids la isticmaalo ardayda ay isticmaalaan ee markaas ay kusoo bandhigaan maxaa la yiraahdaa cashirkoodii ama wixii discussion ka soo baxay inay isticmaalaan. okay, activities ku jira chapterkan activitieskii waa ilaa iyo 5 activity-gan waxaan dhahnay waa activity oo experiment isla markaana ku dhisan discussion oo hadhow discussion ka imaana ardayga su'aalo la weydiinaa. ulajeedka activity-gan ay leedahay waa in la tilmaan gareeyo ama la sheego hokislow lagu sheego verbal form ama mathematical form hadhow ardaygan uu sheego markuu experimentiga ama tijaabada uu sameeyo. materialka loo baahan yahay waa sheegnay spring, different masses iyo ruler, intaas ayaa loo baahan yahay. si loo wadaayo marka activity-ga marka ugu horeyso ardayga waxaa laga rabaa in uu mooladii uu suro meel uu kasoo laalaadiyo si vertical ah oo usoo laalaadiyo moolada. sidaas si lamidana uu meel ku qorto ama uu ogaado equilibrium positionka ay taagan tahay moolada si xor ah markii loo soo laalaadiyo. dabcan meel ay taagan tahay, meesha ay taagan tahay ugu dambeyso ayaa waxaa la yidhahdaa equilibrium position ama mean position. mooladii kasoo qaad meeshaan ay suran tahay, meeshaana marka waxay noqonaysaa equilibrium position. displacement-ga waa 0, no displacement marka meeshaan marka la joogo. marka equilibrium position waa inuu ardaygu uu markaa uu aqoonsadaa. mar alaala markuu soo suro moolada wuxuu ku xiraa qodobka labaad, wuxuu ku xiraa mooladii mass ayuu ku xiraa shay cuf leh 5 kilogram oo kale ama
waxay ahaataba shay culays leh ayuu ku xiraa mooladii markii lagu xiro shay oo cuf leh dabcan waa kala bixaysaa mooladii biraha kala baxaayo way kala jiidmaysaa maaskana meelaha camal ayuu imaanayaa marka halkan waxaa dhacaya displacementiga marka waxaa soo baxaayo intaas oo sentimitir 10 centimeter intay kala baxday ay ku xiran tahay 10 centimeter 2 centimeter 3 centimeter depending on the mass of this object shaygan meesha ku xirtay maaskiisa ay ku xiran tahay intay kala baxayso marka ardayga marka waxa laga rabaa in uu isticmaalo different masses mar wuxuu isticmaalaa mass oo badan ayuu isticmaalaa mar intii ay kala baxday moolada ayuu fiirinaa mastarada ayuu isticmaalaa hore waxa uu sheegnay ruler masradii isticmaalaa oo cabira inta ay kala baxday hadana maas kale maaskii yareeyna hadana markuu ku xiro displacement-igi ayuu hadana cabira sida markuu ku wado wuxuu sameeynaa marka jadwal ayuu sameeysan karaa ardayga inta wuxuu ku qorayaa mass oo kale inta wuxuu ku qorayaa displacement x loo qaataa marka xiriirka dhaxay mass 1 wuxuu qaatay 5 kilogram oo kale displacement-ga meeqa soo baxday mass 2 wuxuu isticmaalay 5 kilogram oo ka bedelay 7 kilogram oo ka dhigay mass 3 wuxuu isticmaalay 2 kilogram displacement-ga waxa soo baxay marka wuxuu buuxinaa displacement-gi extension-ka ku dhacay moolada ayuu buuxinaa ardayga marka hadhow marka uu dhameeyo marka waxa la weydiin doonaa su'aalo ah macalinka su'aalo ayuu weydiinayaa oo ah waa maxay xiriirka dhaxeeyo the mass used iyo displacement produced wixii soo baxay displacement-gii ku dhacay moolada kala bixi iyo maxaa la yiraahdaa cufka la isticmaalay xiriirka dhaxeeyo maxaa waa si kala diin loo maaskan waa weight of the object because gravity waayo moolada way soo laalaadaa si vertical ay soo laalaadaa marka waxaa jira marka weight ayaa jira due to gravity oo soo jiidaya shaygaas cufkiisa ama weightkiisa wuxuu leeyahay it is force weightkiisa iyo xooggiisa waa isku mid ninka waxa meesha lagu xiray marka force-ga la isticmaalay ila maaskan force-ga loo bedeli karaa force-ga la isticmaalay force wax kale ma shaygan weightkiisa la waaye iyo maxaa ka dhaxeeyo displacement-gi barabixi xiriir ka dhaxeeyo maxaa xiriir noocee ah ka dhaxeeyo maaska la isticmaalay ama shaygaas weightkiisa si kala diin loo force-giisa iyo displacement-gi barabixi ku dhacay moolada xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeyo su'aalahaas camal ay weydiin ardayga marka ardaydu way fikirayaan direct proportional ma ka dhaxeeyo xiriir dadban ma ka dhaxeeyo meesha marka waxa ka soo bixi doona qaacidadii ahayd Hooke's law oo ahayd force wuxuu leeyahay ama wuxuu direct proportional ku yahay displacement-ga kullama masska la badiyo ama shayga weightkiisa kullama ma weight hadii la isticmaalo lagu xiro moolada waxa soo baxayo too much displacement ayaa soo baxayo oo waxa ka dhaxay xiriir toos ah marka ka bacdi constancy of proportionality si loo baabiyo equal looga dhigo constancy ayaa loo baahan yahay constancy-gana waxa waaye spring constancy oo k loo qaato kadib waxa lagu dhufanaa displacement force of this object wuxuu leeyahay k oo spring constancy ah times displacement produced marka ardayga ayaa laga rabaa marka in laga dhaliyo qaacidada formulaha ama xeerkii asaga inuu sheego oo asaga yani because of experiment uu sameeyay darteed macalinka marka uu hagaa kaliya uu kaalmeynaa intaasna waxa waaye asaga ayaa laga rabaa inuu laga dhalaaliyo su'aalahan rabaa inuu ka jawaabo marka ardayga this question is what do you observe for the magnitude and direction of the displacement maxaa ku dhacay cabirka displacement-ga iyo jiha ahaan maxaa ku dhacay jihada displacement-ga uu socoto iyo up and down waa jihada sidoo kale magnitude-kana maxaa magnitude-ka cabirkeeda meeqo way badanee way yaraanee maaska ku xiranta la isticmaalo sidoo kale waxa lagu jeedi doonaa does the spring have an elastic force moolada ma leedahay xoog moolada xoog ma leedahay ardayga la weydiin doonaa uuna dareemi kara ardayga dabcan markii moolada la soo jiido oo kale ama shay lagu xiro dabcan moolada dib ay ku celinaysaa xoog ay isticmaalaysaa ay dib ugu celinayso xooggaasna waxa loo yaqaanaa restoring force
activity guidelines siyaabaha loo wadi karo waa sidii hore aan soo sheegnay macalinka ardayda wuxuu u qaybinayaa small groups group kastana wuxuu leeyahay team leader note taker presenter intaas ayuu leeyahay markii laga reebo presenterka inta kale ardayda ayaa dhexdooda laga xulanaya groupka laakiin presenterka macalinka ayaa xulaya sidoo kale macalinka waa maxay roolkiisa macalinka waxa waaye inuu hago u fududeeyo ardayda isla markaana uu observation ku sameeyo joogto ah waxyaabaha loo baahan yahay in la fiiriyana waxa waaye in la iska ilaaliyo learner domination sidoo kale in markasta lala socdo individual participation learner participation qof kasta inuu ka qayb qaato cashirkii inuu ka qayb qaato qof walbaba oo la ilaaliyo waxa la yiraahdo al-furuq al-fardiyya macalinkana si joogto ah waa inuu ula socdaa activity-da ardayda assessment-ga siyaabaha loo assess gareey karo cashirkan ama chapter-kan waxa waaye observation ayaa la sameyn karaa hore u sheegnay question su'aalo la weydiin karaa problem solving method sidoo kale quizzes ayaa la isticmaali karaa resource-ga loo baahan yahay chapter-kan meelaha laga heli karo physics books ayaa laga heli karaa international ahaadaan ama local ahaadaan buuggan iyo wixii ka sareeyo Google search ayaa ka heli kartaa sidoo kale YouTube channels ayaa ka heli kartaa chapter-kan hadii aad ku qortid chapter-ka labaad ayaan halkan galeynaa waana wave motion socod hireedka chapter-kan outline-kiisa waa kuwaanaha waxaan ka hadli doonaa objectives of this lesson contents-kiisa methodology of this chapter sidoo kale activities in this chapter resource-ga ama meelaha laga heli karo chapter-kan sidoo kale assessment-ga seebaa loo assess gareeyaa chapter-kan objectives of this chapter-kan objectives-kiisa ama waxyaabaha markii uu dhameeyo chapter-ka uu dhamaado waxyaabaha ardayga laga rabo in laga xaqiijiyo waxaa ka mid ah state the types of waves ardayga hadhow inuu sheego noocyada hirarka waa noocyo badan yihiin laba nooc amala ugu dhow haddii la sheego electromagnetic waves iyo mechanical waves labadaasaa kow ah sidoo kale in ardayga uu qeexo waxa la yiraahdo wave motion sidoo kale ardayga inuu adeegsado xiriir ka dhaxeeyo wave length frequency iyo wave velocity sida uu soo saaro qaacidadii ahayd wave motion oo ah velocity of the wave is equal to wavelength times frequency of the wave soo xiriirka uu soo saaro waa inuu adeegsadaa waa inuu apply gareeyo oo dabaqaa formulahaas sidoo kale ardayga waa inuu isbarbar dhigaa transverse waves iyo waxa la yiraahdo longitudinal waves labadaas marka laga fiiriyo xagga socodka laba loo qeybiyaa transverse waves iyo longitudinal waves inuu isbarbar dhigaa waxyaabaha ay ku duwan yihiin intaas uu sameeyo sidoo kale way socdaan wali ardayga inuu sharaxaad ka bixiyo electromagnetic waves maxaa la yiraahdaa inuu sharaxaad ka bixiyo sida hirarka loogu isticmaalo inay qaadaan information from one location to another location energy qaadaan hirarku energy ay qaadaan sidoo kale ardayga inuu qeexo earthworks dhulgariirka sida loo ogaado ama loo baaro sidoo kale ardaygu wuxuu sharaxaad ka bixi doonaa astaamaha seismic waves waa hirarka ku imaada dhulgariirka sidii noogu ogolaadaan sidaan baaritaan aan ugu sameyno waxa ku jira dhulka ardayga hadhow inuu sharaxaad ka bixiyo qaabka aan uga faa'iideysan karno seismic waves sida aan baaritaan ugu sameyno what is inside the earth dhulka waxa ku jira state the superposition principle ayaa ka mid ah ardayga awood inuu yeesho inuu sheego waxa loo yaqaano superposition principle and identify that all waves have common properties inuu ardaygu aqoonsado ma ogaado dhammaan hirarku inay leeyihiin properties isku mid ah illustration ku sameeyo ardayga terms of the wave motion and sidoo kale maxaa la yiraahdaa stationary waves ama standing waves waxa la yiraahdaa ardayga inuu sharaxaad ka bixiyo inuu ardayga sharaxo wave equation mathematically tiidada aan sheegaynay waaye chapter-kan meeqa cashir ayuu ka kooban yahay
wuxuu ku goobay ilaa iyo sidaad aragtaan laba cashir labadaas cashir marka waxay sii leeyihiin subsections aad u fara badan cashirka ugu horeeya waa types of waves cashirka labaad waa properties of wave and equations of wave motion ayo labadaas cashir waaye methods of teaching chapterkan xoogaa aad mu badnayn waxaa ku jiro qayb oo concept ah iyo qayb kale oo ah maxaa la yiraahdaa practice marka laga hadlo practice problems ama problem solving marka laga hadlo hirsocodka marka discussion method way ku haboon tahay waxa kale ku haboon group work method and participation method intaan method waxay ku haboon tahay in la dhaqan geliyo approach-ki ahaa student centered activities ka chapter-kan ku jiro waa ilaa 8 activity waa murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi